بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan aad uga mahadnaqayaa dhammaan marshafta ka soo qayb gashay munaasabadan sanad guurida 16aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynayaashii hore golaha wasiirada axsaabta qaranka shacab weynaha iyo marti sharafka dalalka ajaanibka ay ka mid yihiin Djibouti Ethiopia Ingiriiska iyo cid walba Soomaaliland wax tartay oo ciidanka ka joogtaba aan wad koobi kareen dhammaantood uga mahadnaqayaa ka soo qayb galay shirkan waxa kaloon aad iyo aad u hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidanka maanta ay joogno xuskiisii ciidanka qaranka taliska guud wasaaradda jananada saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskooda waxaa loo hambalyo ilaahayna sanadkaas sanadkan u gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash weli ma qoran taariikhdeedu ciidanka qaranka Soomaaliland lama dejinin taariikhdiisa laakiin markaynu ciidanka qaranka Soomaaliland taariikhda bilaabayno waxaanu ka soo bilaabaynaa markii ugu horeysay ee Somaliland Protectorate la bilaabay ciidankeedii ugu horeeyay ee qaran ee la bilaabo hore oo sheegnay munaasabadii ka horeysay 1902 ay ahayd saylac baa laga bilaabay markaasoo la sameeyay xadka Djibouti oo markaa Faransiis gumaysanayay iyo British Somaliland u dhaxeeya halkaa laga soo bilaabay ilaa maanta ciidanka qaranka Soomaaliland wuxuu soo hayay taariikh isbedelo horumaro iyo waayo duruufahooda leh tuulaan maynata maanta waxa Ilaahay mahadiya in ciidanka qaranka Soomaaliland muddada uu jiray ay gobolada la soo noqonay maanta saddex sano ah intii uu jiray inuu adkaaday oo ciidan qaran noqday waxaan u sheegaynaa dhammaan caalamka inaguna nafaheen lagu sheegaynaa kuwa kalsoonida ka dhiman tahay aynu ictiraafina waxaan u sheegaynaa ciidanka qaranka isaga oo la ictiraafin ayuu ku xoog weyn yahay ciidamada kulli ictiraafin ka disciplin wanaagsan yahay ka adkaysi badan yahay ka aqoonsi badan yahay ciidanka qaranka waajibaadkiisa halkan waa laga sheegay ku noqon maayo waxaan u sheegayaa ciidamada qaranka sidoo kale duwan dhammaantood muddooyinkan dambe oo qaranku uga mahadnaqayaa iskaashi wacan oo amniga iyo xilkii loo saaray inay guteen maanta waxa si wacan wada shaqaynaya oo isku xiran ciidanka qaranka ka booliiska ka asluubta ka socdaalka ka badda iyo ka wardoonka oo haddii ay isu baahdaan daqiiqada dhexdeed ku xidhiidha wixii hawlooda gudiya taasaanay ku sugeen amniga anikooda ee dadku ku jooga cadowna ku daafaca waa mahadnaqaynaa taliyaashooda iyo dhammaan xubnahooda iyo hawsha qaranka u haya adduunyada nina magaca buu joogaa nina f buu joogaa ciidamada qaranku waxay doonteen nooca yihiinba oo ciidanka qaranka ugu horeeya inay magaca doontaan dalkana wax uga tagaan ee aanay dheef doonin waa ku hambalyanaa gobashadooda iyo qaranka hawsha u dhaafo ciidanka qaranka haddaan intaa ku dhaafo iyo munaasabadan maanta waxaa kaloo hambalyada ku soo gabagabeynaya kooxdii halkan gaashaan oo runtii iyaguna masaajida barnaamij waxaan noo dhigay aad iyo aad baan iga hambalyeynaya taasi waxayna tusaysaa Soomaaliland inay leedahay dad mufakiriina dadka la yidhaahdo way heesan way gabiyaan waa abwaano runtii waa dad mufakiriina waa dadka odorosha dadku waxaanay arkan intooda badan waa dad ildheer oo cabiraan noloshu waxay tahay dhinac walba dhammaan dadka fakirina u mahadnaqayna gaar ahaan kuwii maanta inoo soo jeediyay fikradoodana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna haddii aynu danta guud eegno maanta caalamka waxaa ka jira isbedelo badan nin waliba halkiisa ayuu ku daalan yahay oo ku dhibaataysay dad badan oo inaga warwar baa ka ilaalinama ictiraafsanaya daala aqoonsanaan baynu hayo faqri baynu hayo dadka warwarka iyo mustaqbalka xururka ah warwar badan iyo walaac bay muujiyaan markaasay dhalinyaro badanna niyad jabiyaan markaasay dhalinyaradu jahortaan qaar tahriibaan qaar meel kale isku qaadaan oo ay nolosha meel gaaban ka arkaan horta waxaan idin sheegayaa dadka warkaa xun sheega ee adduunyada xagga xun ku arka ee aan xagga fiican ka arago qofka aad ku kalsoonana ilaahay aaminsanayn baa taa qaba
marka leeyahay waa ictiraafsan adduunka waxa ugu ictiraaf weyn oo lagu tixgeliyaa waa Mareykanka waxa la yiraahdaa madaxweynaha Mareykanka ayaa qofka adduunka ugu awood weyn waa soo raacsan wajiga ugu dhaqaalaha badaha caalamka oo dhan diyaarada iyo maraakiib diyaarada xambaaraya iyo gujisyo iyo cirka qaar joogo oo dawaafeeyay maanta madaxweynaha Mareykanka maxkamadda gudaha ka saaray go'aysi waa haystaan labada xisbi arkaysa waxa ka dhacay waddanka nin waliba halkiisa intuu waasatay adduunka waaye nolosha ayaa dhibaato bini'aadmiga loo diray quraanka sheegay in bini'aadmiga maanta basha ilaa maanta dhimanayo oo dhibaato xalinayo qof waliba intaalkiisa iyo halka uu joogo maanta waxa adduunka oo ka dhaxla taariikhda oo la yiraahdo dimuqraadiyadda iyo ilbaha iyo taariikhda ingiriiska ugu facweyn ingiriiska maanta dib u xoroobay oo habeen ka baxay Yurubiyaga Yurubiyaga isagina kaleeyo maanta oo asay Soomaaliya xorriyadda soo helay oo adduunyada dib u xidhay doonaya oo bulsho cusub caaw ku fureeyay oo arkaysa wax ka dhacaya oo habeen iyo maalin seexawa dadka ay taatiibsan bariga dhexe xiriirka carabta maanta tahaysata cidna ma haysta ilaga loo seexanayna in khaliijka joogo caaw lagu seexanaya ma jiro Iran iyo Sacuudiga waa haysta qatar iyo Abu Dhabi waa haysta iyaga barwaaqadii san jiray nin waliba caaw fikrad buu ku seexanaya iyo walwal iyo walaaciyo tolo maxay noqon waa cidii dhaata ma jirto idinka nabad ku seexanaya dadkii raaysta ilaahayna aaminsan baa ay tabeeyay kama kana dhaafo markaynu eegno geeska Afrika ee ku noolahay maanta waxa ka socda isbedel cajiib ah caawanina iyo dal caawa Soomaaliland ay chapter halkaas ka nabad badan ama ka walac yare ma jiro Suudaan waa aragtay wixii ka dhacay saaka Masar Egypt iyo Ethiopia iyo Israa'iil Masar waxa ka dhacay biyo la isku haystaa midkood Masar wax ka dhacay Allah Ethiopia isbedel cajiib ah ka socda oo adduunka oo dhan eegayo oo ay u rajeynayaan ka nabad galaan isbedelada soo soconaysana waa ku dhameystaan waa jaarkeena barwaaqada inuu soo gaadho jaarkeena dabkiisa inuu soo gaadho dabka Muqdisho oo ku socda ugu filan jaarkeena kale ay dabka ka dabiyo kuwa iyagana ka dabiyo iyana Ethiopia caawaadkan waxyaalaha ka socda kuwa fur hadalkeeda daa hamar iyo Soomaaliya sadkiisa uu dambeeyo ducaynay ilaahayna ducada wari laga wada qarin oo waa gubanaya iyagana wari talama helin inaga dhibay ugu haya kiyo waa kaysa madaxweynaha ku-xigeenka baa isaya wali ruutu iyo yaa dawladda loo saarayo waxa soo noqday Raila iyo ninka adugeeda maartay loo tirayeen labada aabaysaysteed ee Uhuru oo labadooda madaxda isku qabsadeen siyaasadda oo laba qoys oo ku hadba Kenya aha ayaa maanta isu soo sanqaraya oo kuwii kale ka eegaya oo laga yaabaa in kiistoorka dadii u daraa waa adduunyada nin wadan ku seexaraya ma jiro dhibta adduunka waa lagu talagalay بالآدمية حاليا كم يتبايعوا نهاي سأسوي لهاي المقارنة وموافقة إلى نبض النسيج وحا أدوك يسوي لنا أيوه إني والبقت العسل تاعي ما أنت سومانا سنة كنوحها سنة كنا بعضها إيام الدمالة إيه ستقرأت كتباتين كود يرضى يروح على السي إيه دور عيرين نسور بالمن لا بس إنه عادوا يقولوا وحدوا رأي ضجاره قبائل قال رحل عيد الله قال كلا أبر بقعنا وحول بعد وسولا ويسمو جيل وسولا الله أسرع يوم بريد بقولي وبقولي وحيلاه المهدية يدور عيد رسول قلنا وعيد ما جنون لوكين وما قوي هذا لوكين وعيد إنه يقولون تغيير إن تذكرنا والشعب كل بيها وحواك أحسكوا بيه ليه أنا بتشعر وأضيف كمية والشيخ كمية وقنعسل كمية وأبوان المركي ورسيته كوحص راعي عيال قامتها جاي يقول لك أبوان من ولما تحدي قد أي كذي أو كي هسي كهسي أو كي وكما يقول ورسك شيء أو الدولة يطلع لصوت لي إن ما أنت دل كيرنا جيس إلا كجيس نوض مسيحة أيوه بينه الشيء علم الصعب والحساب الشيء أحزاب في قرب وكيش يدور شيء إلى الوضع كشور إيه الفرصة هو حلم وياه وش هاي المسيئة وحنوبة عنها المسيئة أو ياشي من فرح الثلاثة مركز الصومالي دول سيحرمات شنطة الصومالي أي سوق غير يسيء وحلقة بلابي صومالي إيضا فرسيت كاهي من دول الصومالي حول مركز ورقة إيضا ضمان قبيا وحقوق كبلابا هرقيس وهوي سوقاتها وهوي أضيع فرتدا وهوي هرقيس أضياشي iyo burco
يلا سعانا يبورمه سومالنا يسود الجي تا أينو بنعمل نقل كأنه هاي إيه نستوى كتر الحق وهريب نض أينو أو يشكل عليك أو لك أو أرك يسأل سومالنا تاين أفريقيا القرى ندي أنا مويا لقى شيء استعمال كيه شيء تكذب والبا خير والويبا لسه هذا نمان هشيس كمل كبر وزيرة إلى إيه الله سبحانه هشيس كمل قال استعمال بوح وراها ذلك يجا أمجاه كم على كرتان ما كانوا بعنا نقول إنسان ترى نعرف إنسان ما تشيلون ده أفريقيا وكرام هشيس أمرت وواحد ودلنا دلوقتي زيه إنه أول تانسي كنت أنا تاني سومالان تاريخ ما تنوع حجر سومالان إلى هرمر إلى إسكتاش سميسو كوا نبان إرشاد كنيس أماره وحبك وإيه من ترى سوميني إنك يقول مدينة بهاي ترى إنه بهاي دعاء إنه بهاي وأتكيس دلاتو ده الوقت سنين تهرب إنه وهاي أنت ترى هيسوي شعب الصومالي ما تكسبه يشوفه حمر يشوفه جرو يشوفه شوغان وسمرين waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin talo cid ugu sakaysa wax ka soo yeelan waa inaga hadaynu kuwa ku dayacro oo ugu dhixweyno inaynu wax u qaadano oo inagu horumar sameeyno kuwa madaxda u ah ee sadolka sare leelinaya ee iyaga isku diraya ee kuwa maanta jooga 7 bilood isku dirayaan oo samareen dadka degan miyaad ka sugaysaa kuwa maanta talada haya adiga inay wax ku taraan waa mal kuwa tala ka sugi mayno عالم اعتراف كده waxay ka dhigtaan Soomaaliya ka dagaalama Soomaaliyana u gooyaan qurquriyo magaalo Soomaaliya waa kaysan Kismaayo waa kaysan Baydhabo waa kaysan Garowe kuwa kala saar waaye iyaga u kala xaglinaya ee ciidankii awood iyo ictiraafiyada dawladaha iyo safaaradaha u yeeray iyaga isku diraya inaga oo wax dhibaato ay ugu hayaan ma aha mid inaga u cedelay waa tala xumo ay Soomaaliya oo ku jabirayaan kuwa talada xamaraya guud ahaan isku daro halka maanta waxa lagu hanqal taagan ma jirto meesha waxa ka socda waa dacaayad iyo propaganda iyo TV la isticmaalo oo aan cidna u dareeyin marka utaaka soo wada ee inuu nabi Soomaaliland maanta maxay la gudboon Soomaaliland xukuumadda maanta hogaaminaya laba tan dadaal waxay soo geysay marka hore saddex qodob waa in dalka nabad ka xasiiso dhibaato kastoo dhacana waa in loo maro hab nabada waa in la yareeyo khilaaf kasta khilaafku waa dabka oo kale dabku markuu walaaqo horta waa la xidhaa markaas la dabiya dawladda siyaasadeed waxa weeye khilaafka bini aadamna uu imanaya gobolada isku dhacaya beelaha isku dhacaya xisbiga isku dhacaya waxaynu u baahanahay khilaafka marka hore in la koobo dadka kala duwan laba in dadka la mideeyo oo dadka maxaa yaala dadku war isma hayo maanta baa saacad iyo goor isma hayaan gabadh iyo barano war isma hayaan ceelgaamiyaha gisada joogaan war isma hayo maxaa dhacay muddo dheer oo gas iyo qalaas dalkeena ka soo joogay oo ku sidan boqolaal sanadood ilaa dagaalkii labaad ee adduunka ilaa maanta geeska Afrika ma helin guud ahaan nabad kolba ciidamada isku dalayay u fiirso awooga dagaal ku ah koox joogto ka toosay baa soo wadayaasha labada galay waa ku korayso ka micnaheeda kuwa geesan galay waa scout barmaati wali wasiilo iyo ku warramay ee la qaa dagaalka adduunka oo ugu soo dhintay ee xuquuq lagu siiyay kuwa koonfurta ee doob cadiire ee la baandana waa kuwii bariga galay markii xorriyadii la helayna hoggaanka waxa noqday ee sii socday waa dagaaladii la oran jiray dagaalka qabow ee labada qaybood bariga galbeedka Afrika gudaheeda baa kiina ina saameeyay oo kabal loo yaabo waxa ka dambeeyay jabhadii warigees Afrika boqol sano ku jira qas waa la qaba gees Afrika dhan baa la qaba waxa qaba maadaama dhibaatada Soomaaliyeed ay ku horeysay oo jabhadaha iyo dagaalada sagaashamaadka ay gashay inay Soomaaliland qorsata ugu soo horkabata ee ka baxda ee dhamaantood wargaar doona ee loo soo noqon doono ee kuwa maanta indhaha ka leelanaya ma ictiraafsan ayagu ima doonay ictiraafi doonaan waa haday reegalmeedeen midnimada iyo qareer gareeno inaga inoo taala intii hore oo soo qabanay oo soo dhisan maanta waxay taagan marxaladii ahayd koow nabad laba midnimada saddex horumarka waydibeerteen la yiraahdo inta la sameeyo waydibeerta laakiin waxa la rabaa qof waliba inuu yada ka keeno oo maxaa laga rabaa qof walba suudaanka
taajirka xaajiga lacagta leh siyaasiga kareermiiga waxa laga rabaa oo hore u maraynaa marka aad waxa naftaada la jeceshahay walaalkaada jeclaato wax isdiye marka aad cun iyo cunto ahdo marka aad xantiisa wanaajiso ee aanad balaayad horseedin ee balaayo aan noo dhaweyn aanad fidinin sida dhacdo mar walba taasaad ku gaaraysaa nabad iyo horumarkaaga ubadkaaguna meel ku gaaraya ku gaari mayno inagoo kala oodan oonay baran iyo gabaysa aqoon ku gaari mayno lascaan iyo goori warayska warramo warhaynin ku gaari mayno hargeysa sayr codska warhaynin maxay ku dhanaysaa iyadoo nin walba aamanaad Soomaaliland tahay oo sayr ka guurto oo degi karta lascaanood oo tubtay inaad ammaan adiga iyo xoolaha intaad ku karto inaad lascaanood aad ku xiro tahay aad ku wareegsan aad taado waxa ka talaya hargeysa inta lascaanood taado oo aad ka tirsan berbera yaa ku diiday waa Soomaaliland xeelkeedii dastuurkeena awgool maxay gool-goolis u xidhayna maxaa midna ugu xamaya waxaan ku talinayaa maanta in aynu ka bilowno qarannimadooda siyada taasoo horumar ka imanaya dabcan faqiir baynu waa run faqriga xoog baa kaga bixi karaa baryada laga bixi karo maanta labadii sano dadaalka aynu sameynay ilaahayna roob inoo gaaray waxa inoo haynaa waxaynu maanta beer oo Soomaaliland gacanteeda ku beertay oo kayda ku haysaa hay-adda ka hortagga afweynka gacanta ku haysaa raashin ku filan karna haddii ay dhibaata dhacdo inta aanu soo gaaray adduunka caawa xamaye iyo waa talaabino waa taasoo si xoojina gobol lagu beeri karaa taale raashinkaasi maanta waxa uu badan ka soo baxaa waa 3 meelood kaliya haddii calaf xoolaa tahay iyo haddii xoolaa tahay waa beer iyo xaaxi iyo wajaale boqolaal meelood ka beeri karaa waxaynu ka cabanaa biyaha la siiyo waynu qodan karnaa dhaqaale iyo awood haddii isu geyno biyo xidheeno gobollada haradada aynu ku xidhi karno waxaa laga yaabaa dhaanka ama xafiirka waraabin kara magaalo nusjeeda inuu u baahdo 500 kun $500 gobol qurba-jooggiisa iyo taajirkiisa iyo xoogga la sugayaa way xidhan karaan intaynu gacanta hoosana leeyahay hay'adda hiblaayo noo kaalay waa caqliga sugayno inaga maqan waxaan ku soo ururinaya Soomaaliland maanta waxay loo distoorka waxay lahaayeen labada gole sharci dejinta iyo golaha deegaanka iyo madaxtooyadu waxa koow ka ah loo ilaaliyo sharciyada qaranka iyo distoorka si loo ilaaliyo waxa koow ka ah iyagu laftooda hay-adaha loo doortay inay ilaaliyaan distoorka wuxuu qorayaa doorashada iyo xilku waa 5 sanadood dhamaantood baarlamaanku waa 5 sanadood madaxtooyadu waa 5 sanadood dowladda waa 5 sanadood walaalayaal maanta si uu distoorkeenu u sii jiro si qarannimadeenu u sii jirto si aynu hore ugu marno si aynu markaas soo baxno dhammaanteen waxaynu waajibeen xoogga saaraysa doorashada u qabanayna doorashada waxaynu hor joogaa waa findhici waa wax la daweyn karo 3 xisbi qaran waxay isku raacsan doorashada dhammaan shicibku wuxuu isku raacsan doorashada dhammaan golaha baarlamaanka fadhiyana waxay ogol yihiin inay muddo dhaaf yihiin oo loo baahan yahay doorashada toban ka dira waqaayo fadhiyo gudoomahooda iyagana waa ka diyaar maxay u qabanayaan yaa inaga shaqeynay macadu waa soo dhex galay iska fahamsiin la mado qomayna nahayo intay dhex taalay dhawaan leeyahay waxaynu ku muranaa 2 sanadood hal bedelo komishanka doorashooyinka hal bedelo iyo sharci ma aha haddana waxaynu baran kala doortay sharci ma aha iyo la bedeli kara in kala doorto waxa soo doorashada ururta kala guddiga doorashada hore waa nimadeedii waa waayaan way u baahanaa kama maarano kuwa dambe la doortay inaga dooranay waa sharci waa dadkeedii iyo inaga oo dhammaanteen talaabo isu watagnaa sida doorasho qofsanood qaban kara insha Allah waana dhamayn doonaa gabagabana way soo gaar doontaa arrintaas xalka in hayaan waa intaana ma aha inuu u duwo distoorkeedu ma aha inuu dalku doorasho waa khalkhal iyo soo hormaad ku yimaado waxa soo jeedinaya inuu dhammaanteen u gudbino si doorasho loo lahayn suuqa ciidamada qaranka maanta wixii uu qabsoomay waxyaalaha ugu waaweyn ee ku aqrinaya waxa kamid ah waa markii uu horeysay ee 110 leyli sarkaal lagu taabanayo dalka oo ay ka mid yihiin 10 hablood aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waa talaabo hore
وحقوا برينا يعني يقول كشيء شقاق قرن وإما كان لهم يهرنا يمتى كورك بحثين لك إن يصاب الشنطة بركود وحقوا برينا إذا ماذا كان واحد ضميني حركة عكسية إذا ماذا قرن كورنا وأنا نقول إذا ماذا قرن مركي جوال أي قرن وهي المال الثاني في المسؤولة marka sharci soo leeyahay sanadkan bilaaw waxaan bilaabi doonaa in lagu dhaqmo oo qofkii taageerooba amana foobe ciidamada kamid kulba tabarteedu waxay tahay wax ugu badan ugu wari kara ay noqoto inay barbar noqoto in xaq la siiyo iyo xuquuqda ciidamada bashkooda in la siiyo laga bilaabo taas oo lagu dari doono shaqaalaha dawladda waa la isagana waa raacin doona waxaan ku abariyay ciidamada qaranka oo dhan oo doonaya halkan inaan ka xuso إلى عيد الدلال بدن مجيء سنتك قارها عيد كأسلوبته اسميال بدن يدلال بدن الكسبية أنت بدون كذا بقى حوله عيد بأسلوبته سنة كده ويتو واحد فتح هذا ورينا جودة تاريخ عيد كبريس الله محمد تفضل فاتح بسم الله بلقي اللي حنا الدري أيها واحد اللي حنا وجه هدي ما ترى يا وينك يا عضو ترى بي سوى كل دبي بقى سريها سؤال لا هو ذليحني ما نشأك هذا ذليحني لا روح صعايا قال روح روح ما أنت فضل أنت كهيك يسرح عن صار شيء هو الولي تذكر أبو يا بي الجد والله برضه وحديث شيء قال كل الولي بقرار فضل بقرار لحية بقرار لمده وهذه صورة تبيحها اليوم خليه هو كان يسافر الولي هم يسافر كل يعني dadku aad iyo aad u mahadceliyay mahadceliyay sidoo waxa uu fikiraa inuu sii wada hawsha maantana dhammaan ciidamada qaranka talaabooyinka ay qaadeen oo kumaadeen waa inay ka sii xoojiyaan marnaba baan hambalyeynaya maslaxada oo hambalyeynaya guuriyo goolma loo xoojinaya dhammaan Soomaaliland midnimo nabad iyo horumar waa noo saddexda mabda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi salaam waxaan bixinaynaa bilan ciidamada qaranka waxaan dowladda aan qoraynay sharciga garaadada ama darajooyinka lagu qaadan lahaa waqtiga la qaadanayo shuruudaha lagu bixinayo shahaadadaha lagu qaadanayo isla waa gabagabo waxaanu sii dhammaynay xeerkii xaqsiintoo sheegay iyo waxaanu soo dhammaynay xeerkii biladaha waxaa la bixin doonaa biladu qaybsay bilad geesiga qaranka waxaa jira bilada hawlgalka waxaa jira bilada aqoonta ninka hadduu keenay infection cusub waxaanu bixin doonaa guud ahaan waxaa la bixin karaa hadba ciidanka tiradiisu maanta intay ciidamada kala duwanaa qaranka oo dhan 750 biladood oo isugu jira dahab iyo qalin oo kala qaybsado biladgeesi qaran biladgeesi aag waxaa ku xigi doonta taawulkarka tada'da asluubta intuu shaqeeyey aqoonta ilaa dable ilaa janka u sarreeya maanta waxaynu saaloo soo qaadanay labada taliya qayb ee aagga hore tubarad oo ahaa labadii taliya qaybeed ee muddo 20 sano ku dhowaada aagga hore jiigatay oo iyaga ciidamada qaranka ay ka mutaysteen in loo aqoonsado inay yihiin gutooyinka koowaad ee ugu hormaray inay helaan biladgeesiyaal labadoodii taliya doolaan iyo axmed labadaba waa garanaysaan labadaba hadda waxaan fiirnaa biladgeesi qaran waxaanay u qaadayaan ciidamadoodii